kusoo dhawaada akhyaaray barnaamijkeena maalinlaha ee qubanaha Catay Media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka noo saar Catay Media Caynta Show oo siina share gareeya qodobkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa maanta ayaa waxaa la yiri waxa la soo warinayaa in maanta ay bishu ay tahay 9 bisha Febraayo duqeymo culus loo geystay oo hubiyaal fara badan ay la hugiyay magaalada Baraawe adwaal ku roon yahay deegaan doorashada labaad ee koonfur galbeeda taas ayaan rabnaa inaan diiradda ku saarno qodobkaas maxaa looga gol leeyahay hubiyaashan iyo amni darrada laga sameynayo adwaal ku waxyaalo badan oo wixii hoos yimaadaan ayaduna waan sharaxi doonaa haddii aan leedno waxaa la soo warinayaa saan hore u sheegnay in Baraawe duqeymo culus ay iminkaba ka socdaan ilaa iyo xilli hore oo maaragtaa duhurka intaan la soo gelinba 11kii barqannimo maaragtay ay ku bilaabatay ujeedka waxaa lagu sheegayaa hadda waxaa sheeganaya kulliba waa shabaab hase ahaatee de waxaa jira maaragta isla shaqayn ama shaqooyin maaragta u dhexeeya shabaabka iyo hadda waa la korinaya dadkan kale u dirsanaya markaan qodob la xiriira aan maaragta si sheekada aad loogu fahmo aan u soo bandhigno waxaa jirtay intuusan Cali Guudlaawe madaxweynaha Hirshabelle intuusan tagin maalmo ka hor magaalada Beledweyne oo sida wanaagsan loogu soo dhawaaday waxaan ognahay sanad iyo ka badan 14 bilood in la hortaagnaa xawaalde oo dana fara badan leh ay hortaagnaayeen ayaa waxa isku dayaalay intuusan tagin maaragta wasiiro uu diray ninka la yiraahdo Roobale Baahane oo ra'iisul wasaaraha ayaa halka u diray sababta halka loogu dirayna waxay ahayd in haddii xawaadle la wada kicin waayo qabiilada kale lafaha kale xawaadle maadaama Cali madaxweyne uu yihiin maarta gudoomiyihii gobolka iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba ay ayagu isku yihiin in maarta xawaadle weynaha kale la kiciyo oo laga horgeeyo halkaas ay ka dhacdo qabiilaan isku dagaalo halka maarta colaad maarta dawlad ku ruuya gagmareeba ayaa halka inay ka dhacdo laga oog sidaas la midana aysan u suurto gelin Cali Guudlaawe inuu halka tago si aan maarta 25 kursi golaha shacabka halka yaala farmaajo sajabka ugu shuban halka markii laga soo amba qaado taa isku daygaas soo guul dareystay oo Rooble wasiiradiisa ayagoo fooraro maaragta dawlad ku qamiyuusan qamuunyo fara badan ay ka muuqato aysan ka soo tagin ayaa maaragta wuxuu haddana mar kale isku dayaya in Rooble mar kale uu maaragta hor joogso deegaan doorashada labaad oo magaalada Baraawe uu ka rido dagaal xoogan oo halka ka rido asagoo mar walba wajiyo badan u isticmaalaya hadda waa hubiya la soo tabinaya oo kaliya waxa ku xigi kara oo hadeertan wararka aan helayno ay kamid ah in ay ku soo xigto hadduu alla ku roon yahay in dhanka badda ee Baraawe maadaama ay ku taala maaragta ay kulaalayso sida Muqdisho oo kale badweynta Hindiya in laga soo galo halka oo arbushaad xoogan halka laga sameeyo waxaan ognahay halka maaragta in maaragta doorashadii maanta ay si bilaabatay duqamiina ay socdaan sababta halka loo wadanay wax kala maahan Rooble wuxuu la shaqeynayaa haddii la ku roon yahay ninka Dani la yiraahdo aan hanan waayadeedii gobolkii asaga u dhashay Turkiiba ay soo dayrinayaan hadeertaan iminka isagoo 3 sanad maaragta sicir barar iyo maaragta qax iyo dagaal iyo haddii la ku roon yahay lacagta shilinka 1000 shilin oo qiimo beesho dhacday oo shaqeynin intaaba maaragta ku nacay ayaa wuxuu leeyahay soo maaragta aniga halkan maaragta soo iga saacid si aan maaragta aan ra'iisul wasaare bari kaaga dhigo ama maaragta aan maaragta halka aan ama lacag waxyaalo maadaama uu nin baahan yahay aan lacag ka siiyo taasoo Dani kaliya soo ku hayn gooniya hase ahaatee meesha la yiraahdo Imaaraat uu mar uu ka yimid asaga qodiisa maaragta halka laga soo dhibay adeega noocaas si waxa la rabaa beledu Boosaaso maadaama siciidan 16 uusan markaan uusan boobi karin uu yaqiinsaday awoodii ciidan oo dulkeena meel la iska saaray maaragta hadda la ku roon yahay ayaa si aan Boosaaso loo baajiyo ayaa mar labaad waxa la yiraahdaa Baraawe in maarta waa sababta loo duqeynayay in loo baajiyo la rabo la yiraahdo deegaan doorashada halka kama dhici karto waa sida iyaduna sida si lamid ah garbahaareyna ee u joogsato 16 kursi oo halka uu Axmedoobe ku qasban yahay inuu maarta halka uu gudigiisa doorashada u diro ujeedo badan weeyaan hubiyaashan halkan ku dhacaya nin walba ujeedo ka leeyahay kuwa badan oo waxba ku qaban waa jinaamada musharaxiinta kale nimankii hawiye halkan u badnaa ayagu waa kala dareereen nin walba waa kala danaysteen hoteelada wixii waa faarujeen markaan waxba lama soo saaro waxa kale oo jira haddii la ku roon yahay maaragta nimanka la yiraahdo
siciid danniina waa nimanka danta ku qaba oo la rabo in halkaa la joojiyo si xildhibaanada gorow keliya ugu soo doorto sida axmedoobe uu kismaayo keliya ugu soo doorto oo garbaharey boosaaso laga baaqsado ayaa weeyaan waxa keliya dadka loo laynayo loo barakicinayo baraawe duqeymaha ugu socdan ilaa iminka in la hadlayno wax kale maaha waa kuraastaas keliya hala baajiyo wax kale maaha wax dadkina loo barakicinayo waxaasna waxaa ka shaqaynaya ninka doorashada loo dhiibay oo layidhi doorashada ka shaqeey ee la yidhaahdo danni baahane waxa doontaba u gareen khiyaaray waxaan rajaynaynaa ummaddaas aan usoo duceyno si maaragta ilaahay uu ka caymiyo maaragta waa la kuron yahay musiibadaas dee hubiyaasha ay ku socda oo nabaddarrada waxaan ognaa awalba maaragta godoonno maaragta iska qayl caadiyeen si awalba isaga jireen fadlan sii sheergareeya oo sii gudbiya qolalka u qaybiya kilibkan muhiimka ah walaalayaal waa idin salaamayna